kadib bukaankii xaalad shoog ah oo loo yaqaano septic shock inuu galo saasna u keeni karto qofka nafsidiisa inuu halis u keento. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacayga waa Dr. Cabdiraxmaan Muuse Xasan, dhakhtarka cudurrada guud ee qalliinada. Maanta waxaan rabaa mowduuc ku saabsan inaan ka hadlo frankalka amba ka soo baxa. Soomaalidu waxay u taqaano baxdinta. Waa cudur ku dhaca maqaarka kaasoo keeno meeshii uu ku dhacay inuu soo bararto, bararkaasoo la socdo xanuun, qandho iyo calaamado kale oo badan. Baxdinka amba ka soo baxa waxaa sababa wax bakteeriya loo yaqaano Staphylococcus aureus. Baxdinta sida badan waa cudur maqaarkaas ku dhaco, waana waajib qofka waxaa u fiican in la daweeyo. Sida badan bukaanada way ku adag tahay inay aqbalaan in xaaladaas laga daweeyo amba haddii qalliin uu u baahan yahay in laga qalo. Xaaladaha ugu badan dadka ay ku andacoodaan waxaa ka mid ah inay dhahaan qofka ka soo baxo ama baxdinta inuu haddii dawo la siiyo oo dhiman karo. taas hadda wax cilmiyan waxbaysa ma lahan, waxayna ku nisbeeyeen amba u sababa inay arkeen dad badan oo xaaladaas oo kale ka soo baxay u dhintay, taasoo u badan meelaha ugu badan ee riskiga ah keeni kara qofka inuu u dhinto baxdinta marka uu ka soo baxo wejiga. Sababtoo ah wejiga waxaa ku yaala dalduleelo u furan maskaxda, taasoo keenaysa caabuqi inuu u gudbo maskaxda, kadibna maskaxda nadayaasheeda uu damage gareeyo caabuqi, kadib saas uu maskaxda dhibaato u gaarto, kadib saas bukaankii uu dhinto. taas waa waxa ugu badan waxa keena qofka inuu u dhinto ka soo baxa amba baxdinta. laakiin sida badan jirka waa lagu arki karaa, qoorta ku soo bixi karaa, lugaha ku soo bixi karaa, batoga ku soo bixi karaa, amba barida anal area amba saxara mareenka area meelahaas lagu ka soo bixi karaa. nabarkaas waa nabar u baahan in loo sameeyo treatment. haddii bas amba malaxdii meeshii ka buuxsantana u baahan in la qalo. basically ma ahan qofka in lagu waajib yeelo in waqti hebel baa dawada la siin karaa amba xaaladaas saas ah. baxdintu waa cudur u baahan in la daweeyo marka xaaladaas uu joogo. haddii baskii amba malaxdii meeshii ka buuxsantana waa xaalad u baahan in qalliin lagu sameeyo, incision and drainage wax loo yaqaano malaxdii in meeshii laga daadiyo. basically waxa ugu badan ee dadka ay markii xaaladaas la arko dhaqaatiirta arkaan ay ku dhahaan nabarkan waa lagu soo tufayaa amba waxba lagu soo sameynayaa, taasoo keeni karto haddii dawadii laga daahiyo amba malaxdii meeshaas ku jirta aan laga saarin wax loo yaqaano septicemia inay keento, infectionkii dhiigga uu raaco, kadib bukaankii xaalad shoog ah oo loo yaqaano septic shock inuu galo, saasna u keeni karto qofka nafsidiisa inuu halis u keento. mar waliba waxaa waajib ah u fiican xaaladaas markii la arko dhaqaatiirta in go'aankooda la qaato ah in haddii dawo u baahan tahay dhakhtarku dawo u siiyo, haddii uu qalliin u baahan yahay amba malaxdaas meeshii in laga daadiyo u baahan tahana laga daadiyo. waxyaaba ugu badan ee dadka ay ku wareeriyaan waqti badan ay ku lumiyaan oo bukaankii waqti dambe ay ku keenaan waxaa ka mid ah in ay dhahaan waa lagu soo tufayaa amba waxbaa la soo marinayaa traditional amba caado dhaqameed ay ku sameynayaan, taasoo keeni karto in complication ama dhibaatooyin ay keenaan. haddii aad isku aragto xaaladahaas in la soo xiriir.